ودرار أما سهرين جيجا Soomaaliyeed ee geeska Afrika muhiimad u leh Soomaalidu dadkeedu waa ayaan ay daadayaan dareen dalajaclaysi huban diiwaanada daabacan duugoobay ee xusuusaha taariikhda ka hadlaya waa ayaamo aan dib u akhrino waa daraarihii xurriyadeena waa ayaamaha ay idaacaduhu baahiyaan heesaha wadaniga ah gabayada guubaabada leh iyo barnaamijyada suugaanta leh waa daraaro yididiilo iyo diiranaan gelinaya dhalinyarada oo dharka hidaha iyo dhaqanka inta ay xidhaan farxad awgeed ay qoobka ciyaarka ku dhaanta wadaagaan waana waqtiyadii waayeelka waaye aragga ah la maciinbido daraarta aynu xusayn ee ilaa heerkaas xiiseynayna tuma ayay ahayd si aan maalintaa u tilmaamno toobiyaha taariikhda waa in aynu dib u raacnaa ilaa aynu ka gaarno sanadkii abwaanka Soomaaliyeed uu lahaa samadakii wekaaye xidiga mid la siiyayow saaxirkii kala guuraye sarreeyo ma nusqaamawa aan siduu yahay eegnohe ka nasiibkana saare waa maalintii 26 Juun sanadkii 1960 markaasi oo dhanka waqooyi ee jamhuuriyadeena xorriyadooda ay qaateen waa maalintii calanka buluuga ah isagoo xur ah u dhul Soomaaliyeed uu ku dalbado maalintii ugu horeysay oo dhul Soomaaliyeed oo xor ah calan Soomaaliyeed uu ka babado oo laga taago waa maalintii halgankii dheeraa oo dhibka loo soo maray laga mari dhaliyay oo Allah u naxariistay Abdullaahi Suldaan Timcadde oo qiiraysan erayadiisii wadaniyada ku dheehnayd taariikhdana gashay ku yiri sarreeyo ma nusqaamo aan siduu yahay eegno ee kaana siib kana saaf waxaa magaalada Cadan ee dalka Yemen laga soo qaaday ciidamo loo carbiyay in ay u murugoodaan marka calanka Ingiriiska la dejinayo raggaasi oo tunayay music tiiraanya leh waxaa lagu tarbiyeeyay in marka calanka la dejinayo in ay 10 tallaabo dib u qaadaan iyagoo aan soo jeesanaynin waxa kale oo Ingiriisku lahaa marka calankooda ay rogaan inay dib u gurtaan calankay wataan aan soo jeesan ilaa 10 tallaabo dib u gurtaan marka sidaas dhacday kooxdaas timid oo calankii way soo rogeen musiga murugada ay tumeen hogol baraaweyn ayaa nagu daaday murugu Ingiriis lamaydaan markii ay Hargeysa maya tiriyeen waa habeenkii 26 bishii Juun ee hal abuurka reer waqooyi uu heerka sare gaaray waa habeenkii saxardiid jabiye uu lahaa ma gowdo candadi gola marise an malo hache namande wa malin muran iyo make waa daraar dhalinyar iyo waayeel dadku dowla cadeen ka sinaadeen ee dagta u wada qosleen hangaja iyo harahadan qalme dara hartan usoo dhiibahatan mutay dolaha qosol maygu soo dhacay waxaa xusid mudan in suugaantii Soomaalinimada iyo wadaniyada abuurtay ay ka timid badankooda abwaanadii ka soo jeeday gobolada waqooyi abwaanadaasi waxay ku reebeen ummadda Soomaaliyeed dareen wadaniyad iyo wadan jacayl iyo ilaa maanta ay ku abuuran tahay dadka Soomaaliyeed qulubtooda sida dibicda roobka
ninka beeralayda u dhowro ayay Soomaalidu meel ay joogtaba u sugayaan dhawaqa xuriyadooda mar in uu dhagahooda ku soo dhaco. abwaanadu iyagoo dareenkaasi qaba waxa ay dafayeen quluubta dadka iyagoo ku dhibcinaya dareen wadaniyadeed. waxaan ummadda Soomaaliyeed u xaqiijinayaa in dawladdan ay ku hoolan tahay soo celinta sharafta iyo karaamada dadkeenna ee hore u lahaan jireen iyo buuxinta kaalintii Soomaaliya ay ku lahayd beesha caalamka. si taas loo hirgeliyo Soomaaliya waa inay noqoto dal nabada ku guulaysata midnimo kuna tallaabsata horumar. sidaas darteed midnimo wadajir iyo ulideena aan isu geyno ayaan kaga gudbi karnaa tartanka ka socda adduunka ee ah dhanka horumarka ama siyaasadda iyo dhaqaalaha. calankaas korkeena ka babanaya maxaa kifaax loo soo maray maanta aynu xurnahay calankeena waxa uu naga sugayaan in dadaalkeena aan laba jibaarno oo gacmaha isqabsano annagoo shacab iyo madax ah oo wada jirna islana jaan qaadaya.